ilaahay fadligii ciidamada dawladdu waxay gacanta ku hayaan dhammaan degmada Gurceel waxaa u suurto gashay inay gacanta ku soo dhigaan maxaabiis fara badan oo ahay dadkii ka dagaalamayay qaybo ka mid ah degmada Gurceel isla markaasna carqaladeynaya nabadii ka jirtay degmada waxaa loo dhaqmay si wanaagsan ciidamaduna waxay u taxaabeen xabsiyada waxaan rabaa inaan baaq u diro dadka reer Gurceel ee ku sugan magaalada dhexdeeda magaalada waxaa ka socda howlgal emergency ah howlgalkaas oo ciidamada dawladdu ay ku raajoogaan ama ay ku baacsanayaan qolooyinka nabaddu ay dhibtay waxaan u sheegaynaa marka dadka reer Gurceel in guryahooda ku nagaadaan dadka shacabka ah magaalada dhex jooga guryahooda inay ku ekaadaan aysan soo bixin howlgalkaasi inta uu socdo si loo kala saaro dadka nabadiidka ah iyo dadka shacabka ah oo magaalada dhexdeeda jooga waxaan rabaa baaq labaad inaan u diro qolooyinka wili ku harsan meelaha yarka ah ee farakutiriska ah ee xabadaha ka soo riday inay si nabad ah isku soo dhiibaan ciidamada dawladdana ay isku soo dhiibaan oo gacantooda ay soo galaan inta aan hawl